نبا واحد دليا دبتنا غير كودي سوى قرد الروح قد لي حماية بيسيني حاجة ضم الله اسكمرين اياها وهل لي غير بلو ده مقبان ويدين وقالله دي كلو حسبين كرتان سماية مقتو راركو وكو قصبين إني دقالمان يني مقطعتان مقتى قاعدان اياها مقتى مركي قاطان دب كلا إسنا غيرك قدي سكتشرو مقتى لما سيو ددكي أقوانتي يريري يا بهد لدليه خيرك هاتينا قيب سنية سقا وحير بالا سينية إنا يربا سوكرية وابيه لدلي وندون لغسين وآن لو دلين أو وحبا حقوق لحي نكان يساقو مركو سوقان قادا وهبا قادان كارو وحي كاقو أنت يسنينو مد كوكا قسيو إلا يسبب به اللي دلي ما قلنا لك ما سين at least compensation ديادا نيوا compensation هدو قفكو compensation أبيه مركي اللي دلي وهالي لها وحلا غياب لها إنه صبر كار لها إنه حنا كينا غيرك قيب صدي إذا هدي للربو حساسية أنا هراينين يا ما قفك واحد دلي قفك اللي يسجد دليه أسباب بدن قفك يقول لواي يود بدل الجليه أما يجاكتو ده يوراني أنا ما ينيني نقول بوها يكاني ومدق مئة وده هبل بينو كدلينا أو كي واحد لين تلا نافقو كلا لدليو وحاصلنا موا حرر رباهن إلا بدليا بدليا وحبدليا أقوياء كي علماء يا سلاطين يوم مدو هديل بدل حرر كاس وحي فضايلين إنسا إن مدو صار نغط وحي فضايلين إنسا إن دتكو نبتكو هذا النولان كمان soomaalida haddaadan joogta qabaa'ilka qaar baa isku dayay inay bedeleen oo wax ka qabtay kuwii wax ka qabtay nabad bay ku nool yihiin waxay yaraaday dilkoodii waxay yaraaday dhibtoodii inay kii dadka u geysanayeen ma uu yaraaday isla reeraha halkaa wada daga jilibba ka mid ah iyagu diiday waxay dhahay waa nin reer hebel intaanu soo qabanna hala dilo odhan mayno weli dilkii sidii buu ugu socdaa intay aakhiro u direen baa weli tiro badan sababtuna waxa weeyaanuun waa xeer xumadatan haddii xeerkan la bedelo wax kale uu joogsanaya idan waxaan leenahay majaalka laga tacaawuni karo ee aan u arko inuu wax bedeli karaa waa in xeerkan la bedelo si uu isu bedelo waxa kale meelaha laga tacaawuni karo ee xeerkan hoos imanaya waxaa ka mid ah dadku haddii xeerarkan dulmigu ku jiro la bedelo uu cadaalad dareemo noloshu way fududaanaysa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayay cadaaladda dadka inuu ka simo gabadhii qurayshiyadda ahayd ee tuugada loo qabsaday qurayshi way qaadan kari weyday waxaa la yidhi aan nabiga kala hadallo calayhi salaatu wasalaam inaan gacangoyntan lagu fulinin aan kala hadallo oo iyo nabi maxamed aan u dirraa la hadli karaya baa la yidhi waxaa la yidhi nimuu aabbihii jeceliya oo isaga jeceliyay baa jire ninka aan ku dayno cid kale loo diri kari maaye ma aha tolkii nebiga iyo qabiilkiisii waa usaamata bnu zayd baa loo diray oo la leeyahay kala hadal nabigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu ka cadhooday maxaad ilaahay xuduuddiisa ka mid aad ka shafeeco qaadaysaa buu ku yidhi dabeetana nebigu wuxuu u sheegay dadkii idinku horreeyey waxay ku halaagsameen hadduu wadiico amada ka liita hadduu qaanuunka buriyana waa lagu oogayay shariifku hadduu galana ninka magac iyo maamuuska caynkanina waa laga cafinayay idan dadku hadduu cadaaladda u sinmo waxaan tollaayayda qofka ku kalifaya waa maxay wuxuu la'yahay meeluu cadaalad ka helo hadduu qofkani dowladnimadan iyo waxaan la sheegaya hadduu cadaalad ku og yahay muu tolla ayay yidhaahdeen booliisku u tegi lahaa oo odhan lahaa qofka ba wax iga dilay laakiin markuu isleeyahay ka booliiska haystaaba mid reer hebel ah oo kalsoonidu ay ka maqan tahay marka uu rumaysay inaan xeerku u sinayn isaga iyo inta kale waa inuu cid difaaci karta uu yeedha inta aanay cadaaladi jirinna qabiil waxba kama qaban karaysid ama qabyaalad waxba kama tari karaysid waayo qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisaba waa inuu iyo cirdigiisa iyo sharaftidiisa waa inuu nabad ku helaa intaa markuu nabad ku heli karaa marka uu rumaysay in cadaalad ma lihin dunuubtaa maranayso qof wax dilaa la waaya ama qof wax xadaa la waaya ama qof wax dhibaa la waaya ma lihin laakiin haddaad og tahay inaanu cadaaladda ka baxsanaynin waa wax fudud marka
لكن markaad ogtahay in xuquuqdaada lagu xadgudbayo waxaaga qofkii inaanad cadaalad qabsiin karayn idan majaalaadka reeruhu ay ka tacaamuli karaan waxa kamida inay u hoggaansamaan in cadaaladda dadka laga simo oo reerku hadduu wax geystaan in cadaaladda lagu oogo haddii cid kale ay wax geysatana in cadaaladda lagu oogo taasi hadday dhacdo waxa soo noqonaya kalsoonida iyo is-aaminka iyo in dadku isku kalsoonaado waxaan leenahay waxaynu u baahannahay hadda dadka kalsoonida ka wada dhinsan oo waxaad is leedahay haddii mid reerkiinii meesha qabsadana waxaad is leedahay xuquuqdaada waayi maysid saasaa kaa dhaadhacsan haddii laakiin reerkii aysa hayseen uu meesha qabsado waxaad is leedahay adiga dee shadaaftaa lagu laabayaa waxba kuuma hadhsana marka waa inaad dumisaa dowladnimada marka aynu haysanno ama dadku uu ku yeedhayo nidaamkeenna qabaliga aynu u noolayn iyo addawla alxadiida isma gelayaan sababta aanay isu gelaynin koowaadna waxa weeyaan addawla alxadiida waxay rabtaa in iyadu hubka haysato oo shacabku aanu hub haysanin waxay rabtaa in iyadu dariibo qaado cashuur qaado oo dadkao dhan ay ka soo qaado waxay rabtaa in iyadu dadka matasho oo tamthiilka diblomaasiga iyadu yeelato adiguna ka qabiil ahaan haddii dowladda nin reer hebele qabtay waxaad leedahay dhowr waxba waan waaye kow askarta hadduu isagu yeesho dee wuu gumaysanayaa marka waa inaanu dowladdiisu kicin hadduu dhaqaale helo oo iga dhaqaalo bato wuu gumaysanayaa waa inaanu dhaqaale helin intaasoo dhan xataa haddaa u sinaataan waxaad leedahay dee reeru way isu faanayeen reer hebel weligiiba madaxweyneha ma qabanine madaxweyne qabashadu waa tashriif buu u arkayaa dee reeruhuna bays waxa uu ahaa attafaakhur in laysu faano marka faankii baa laydinka helaya marka waa inaad ogolaanin si aanu faanka kaaga helin waa inaad ogolaanin inuu meesha tago idan dawla alxadiida qaabkan ay u dhisan tahay iyo muctaqadaadka qabaliga aynu rumaysannahay isma waafaqayaan iyadoo aan iswaafaqay maynana waxaynu qaadanay caqli odhanaya 4.5 iyo 5 iyo reeraba in wax loogu qaybiyo way adagtay inay labadaas iswaafaqaan waa waxaan suurtagal ahayn idan waxa suurtagalkii waxa weeyaan ma leenahay dadkan kalsoonidooda in dib loo dhiso in mabaadi' laga dhaadhiciyo ay wada halgamaan waxay u tanaafusayaan inuu tanaafus khayra noqdo oo khayrka lagu baratamo dadkan inuu cadaalad wada helo oo cadaaladdu ay ka sinaadaan qadaayaadkaasi haddii la helo waxa fududaanaya inay bulshadani bulsho wada nool oo wada dhaqanto oo wax wada yeelata ay noqoto majaalaadka in la xaqiijiyaana waqtina way u baahan tahay meesha xanuunku ku jiro in la abbaarana way u baahan tahay dadku inta badan waxay u calacalsan yihiin xagga madaxtinimada iyo xagga baarlamaanka iyo xagga dowladnimada dhismi mayso tii horena way duntay kuwii ka horreeyeyna way is haysteen maalin walbana inbaa ciil qabaysa haddaynan bedelin dadkani siduu u fakerayo iyo aragtida ay rumaysan yihiin iyo waxa lagu dhaqmaya haddaan la bedelin walidaalika ayuha alikhwa teenna tuka adag buu nebi maxamed bedelay calayhi salaatu wasalaam teenna qabyaalad ka adag oo ka dhib badan oo haddii aan ka sheekayno gabayadoodii waxay rumaysnaayeen siday u fakerayeen qaabkay wax u arkayeen waxaad soranaysaa uun qolo soomaaliya ahayd qolada meeshan deganayd laakiin dowlad dunidoo dhan ka talisa nimankaa lagu bedelay waa isla iyagii cumar bin alkhataab oo cumar bin alkhataabkii jaahiliyadana noolaa abu sufyaan waa abu sufyaankii jaahiliyadana noolaa maaha dad cusub xataa dadka badh baa jiilka yar ka fakeraya nebi maxamed carruur malcaamad kuma darin intuu malcaamadu furto isma odhan yararkani ha kuu soo koraan kuwani kolley waxba iska bedeli maayaane marka kuwan yaryari soo koraan may kuwa waaweyn buu la dhaqmay odayaal waayeel salaadiin cuqaal aqoon wixii waddanka joogay ee dad ahaa kuwaas baa la iswijgareeyey bini aadamka markaa
وأصير معتقداتي وصدا وحو أركيه هذا ولا بربارية ووحلو بربارية خير نمو خيركو إنه مقع عليه هاي ما مسنا ليدهن خيرك إنه ولقي بخيرها كلو تلينشري إن أيدكو دي أنت أنا هلك أفرد لأنه والبلاي ده بخيرك إنك الشاكي يوحي لغو شاقي وحيوم بدن تيننا هنا لو شيء بري خيركو هذا شبي نوال بوحة هيا أنت جوابات خيركو تقول استي قبيضة أي تريه حولي هاي غيرها كلاك قاضي لكن انت يجا حول الله قاضي اما الشبيه اما الله شكلكم ما شفتوا لو بس شيء مركا نين ولا بو خاص غير كودون بقرده ودنك ahaan jiray nin wala Soomaaliyeed taas rumaysay qabka iyo hanka u maaraysa la jeeday xaqada jirta marka waxa weeyaan waxaynu u baahanay uquusha bini aadamku siday u fakarayeen inuu bedelo ma aha inaynu dhaahno qabiilka hal la dumiyo reer ha ku abtirsanin waxaan hal wax kasto aad bedeshaa waxba ma bedelaan bini aadamka wax ka bedela waa sidii uu fakarayo dimuqraasiga arkaysaan iyo reer galbeedku saatan dimuqraadiyadda waxa ka horeeyay casr tanwiir waxa yiraahdaan enlightenment waxay u bixiyeen qarnigii 17aad 18aad enlightenment wuxuu bedelay yurub sidii looga fakarayay ama saxaada ama qaladaha waxay ku bedeleen kama warramayo لكن waxaan tilmaamaynaa dimuqraasi ma kicin ilaa iyo yurub siday u fakaraysay iyo uquusheeda la bedelay markii la bedelay kadib ayaa hannaankani uu noqday hannaan jiri karo sugmi karo socon kara hannaankan qaadanaya iyadoo dadka waxba laga bedelay suurtagal maaha dimuqraasiyaan Soomaali anfacaynin mabda kale dawladeed baan anfacaynin waxa anfacaya wax weeyaan siday u fakarayaan iyo aqliyada ay rumaysan yihiin iyo dunida siday u arkayaan wax iska bedelo hankooda wax iska bedelo